laba sheekay leedahay maasadaa hooye la'aanta mid waxay ahayd anigoo yar oo caruur ah ayaa geel la arooriyey geeli baan raacay aad baan u yaraa u malayn maayo da-deedu 6 jir ka weyneyd 6 jirku waqtigaa dee kulleyba nolosha kaalin buu ku lahaayo qofku yaraantaba dee kaalin buu nolosha dee kaalin qofku da kastaba ha joogay nolosha cid kasta nolosha kaalin bay ku lahayd marka anigu kaalintan ku lahaa waxay galaysa markuu la arooriyo ceelka la geeyo inaan is hortaago oo marba in la sii daayo intaa waan kari karayo da'daasana dabcan dabada geeliba raacay la arooriyey wuu soo cabay wuu soo fulay goor caweysa ayuu xeradiisii uu ka arooray u yimi xerada beelgood ay ku taalo reerku maaragtay waa ka yar durugsan yahay reerka geela haddii ay ka dhigo geel uu xareysan yahay intiisa kale way ka durugsantahay xerada marka xerada baa geeli waa soo xeroodayo waa la maalayo maanta oo dhan waxbaa la waraabinay maanta oo dhan geeli baan hortaagnaayo markii la maalay caanihii la dhamay waa la gataati dhacay geeliya aniga iyo raggii waaweynaya gataati dhacu waa marka daalku kugu khasbo inaad istaagi kara weyda aad haddii ka dhigo maaragtay aad beelu sidaas waa istuurid weeye haddii gataati dhacaan israado imanka uun si kooban u sheeg waa la daatay dabeetana goor caweysa baa kaadiyay goor dambe oo malaa sardhool la hurday ayaa caanaha geelu iska caadi kaadi badan bay leeyihiin yaan toosoo kaadi bay qabato waxaasay soo kaadi marka hal baan arkay oodii geelu markuu soo cabo waa caada iska jirta habeenka haddii aanu biyaha caws ka dambaysiin waxaa lagu yaqaanaa inuu ka daato xerada xerada ka daato waa inuu daaq mar hadduu biyo soo cabo caloosha biyaha qabo caloosha ku jira waa inuu wax ku haddii la ka dhigo maaragtay waa inuu daaq helo haddii ay la waayo oo sida toos loo soo xiro xerada u soo galo laasim waa habeenka xerada ka daata soo arkin marka waan toosay waxaan siri kaadi bay qabato soo kaadi baan siriyo waxaan arkay hal oo jeexday oo qaarkii hore dibadda ula dhacday qaarkii dambena xerada ku jiro waxaan siri asha haddaad sira soo celi meeshu waa meel caanaho waa waqtigii libaaxa oo dhulku sidan imika u araday maahayne dhulku waa camiraayo dugaag oo dhan nooc kasta ayaa jooga marka waxaan saadad heshaa istaa soo celi bahalka hareeraha ka ciyaya ee libaaxa la yidhaahdo ku dayn maayo ku qaadanaya dabeedna yar baan intaan halkii aan fadhiyay iskaga kaaji ayaan halkaa iska sii seexday hashii halkii bay ka baxday geeli oo dhamina halkiibuu ka baxay ووضح بقى إلى ذهبك حرادة ما حرادة كم تشري والله إلى ذهبك جوح اللي بحنا ولا مقلع أفرت بيشوك عيه اللي بحه ووقت جيت لكو عم الراوي وحول بيتشوقين ما حوالي بني آدم الدقاق كل نوعه عياد بيتشوقين وقال كل نوعه واقفت marka koorda baamala geeli xaradii halkiiba ka baxayn ba duway ba toosay oo kaali qabatay xaradii waxa fadhida hal kaliya oo ka biyo la kici weeyay oo duqa waan wali magaceedu xusuusto qaabil la oran jiray qaabil ayaa xarada fadhida intii kala way dareereen ki markuu toosay xaradii oo maran arkay waqtiga aad meel loo baxsadana ma jirin oo magaalo iyo qurbe iyo wax kale ma jirin oo ninku haduu hashii xarada ka waayo تمير ماله واي ميل وعرضيو كله ميل وشقتيو كله ما جرتو حردي markuu arkay barata bi warka kaca geeli xerada kuma jiray tabadna wala yaacay in waqtiga saqada dhixay hashii xerada ka waay ma biir qabo markii la yaacay halkii baa laygu ilaaway wareer baa dhacay aniga yaa shaqaa bilabiya la kici weeday labadina la kaga tagay ayaa loo kala tagay koorta baa kaadi qabatay qoliyo xoro mise وأرجع هالشقاب الإب أو بيلك عويدي الدقة بيرب بدل ندسو عبتو بيلك عويدي إتالي لك كلك عدوها مركب وحنا سير هاي كل جروات دروس وحنا ساتادي مكدس سريرك قبنا كده حدا بحال كوا قاضي مركب أرضا للسبية ودور يدور ما يسوي شيء وقبل السبية قلبتي أيام ضحك علي وشيء كشرت اللي باعوا araga waxba kuma dilay ee urtu wax ku dilaa ama bahal oo dhan eega way idinka arkay sida markuu xaraadinayo bisaduhu waa the same thing صح الباح waa sidaas dabeedna markaas aan sii wallahi caawade
urbuu kule ku imanaya laakiin urta mar haddii hashani joogto xerada dhex fadhida dee waxaad leedahay rashaad leedahay iyadaa la cunaya haa dee qaabil allah yakhali qaabil dabeedna uun duurkii iyo ardaagii jiqda ahaa ee cawska ahaa la dhisay ayaan dhex galay dabeedna halkaa raarta anigoo meesha ku jiro oo meel yar labada indhood meel yar laba duur inta saa u yar kala qabto wax ka daawanaya ayaan halkaa dambe xerada raarteeda dambe saqar ka maqlay cadday ahayd waxaan filayaa ama 13 ama 14 dayaxu habeenada bayaxowga la yidhaahdo waa egay qoryo xero libaax waaba ka soo boodi xeradiiba saqar baalku lugihiisa waxaad moodaa spring baa ku jiro markuu soo boodo saqadhiisa dareen la maqli maayo inta badan baalku dee waa bisad yar uun adigu adiga arkay aayar buu saa u soo booday saqadhi yar oo fudo waxay la mida maray aad sii dayso dhulka ku dhacday dabeedna waa dayaxi waan egay markuu raartaa ka soo booday saasuu ii hormaray hashii qaabil oo halkaa fadhido oo iska raabsanaysa ayuu u tegey hashii saas u jaleecday oo u eegtay oo kici kari mayso dabeedna baalku oo manu joogaa waa meel hawda oo mana ah oo ugaadh baa cariga ka buuxda hilibba dooni maayo waa raadan yahay marka hashiibu halkaa maaragtay halkaa meesha halkaa goljilic baa la yidhaahdaa intuu soo agtaagay ayuu halkaa goljilic waa halka ugu jilicsan waa meel cadkii ka dhammaaday oo waa haraggii oo keliya goljilic baa marka hore baa iska jilicsan waa halkaa halkaasuu qabto saasuu soo dhuftay kasa biyihii soo boodeen hashii saasay u jaleecday xataa way cabaadi kari weyday ticid iska daa biyihii baa dee galsha noqday balli yaroo dabeetana jilbuhu dhigay biyihii buu cabay biyihii markuu cabay hadda markaa waad daawanaysaa anigu waa anigii hadii ay ka dhigo insha allah dhinaca farsamada ay ku jirto ninkan haa aad iyo aad laakiin uurin maayo dee urtii waxaa ku gudban hashii ya hadduu iru lahaa oo u iman lahaa way heli lahay laakiin urtii waa isku mid qofka urtiisii hasha isagu urtiibuu ku yimi hasha urteediibuu ku yimi waa garta kabacdi markuu biyo cabay dee waxaan filayay markaa inuu baxee waaba iska dul fadhiistay aayar buu fadhiistay nina sidaasuu labada jilib dee labada qaarka dambe ugu fadhiisto cabaad buu fadhiyay markaluu biyihii ku noqdayoo markuu cabay ayuu meeshii geelu ka baxay marka maadan ooyin miya adiga caruurta waxaa lagu yaqaan waxaasi ma jiraan oo waqtigaa oohinayo in qofku lix jirka waa ku nin raga weeyo libaaxa maaha dadkan iska cambaha ahe qofka waa la leyli jirayoo inuu ooyo iyo waxaasi mamnuuc bay ahay libaaxana waad ka warhaysay inuu ooyo qofku waliba raggu ilaahu mu 4 jir noqdo oohintu mamnuuc bay ahay iyo cabashada iyo jirjireeca iyo waxaan oo dhamma jirin gartay noloshaan anigu dhexdeeda ku dhashay marka calaa kullin baalkii wuu baxay qoryo xorana weli alxamdulilaah ayaa mid kale kadinkii geelu ka baxay kasoo galay libaax kale oo isna ma ooman yahay talow isna biyihii oo markaa dee batay ayuu isna iska dul fadhiisto wuu cabay oo markuu cabayba saaca isu taagayo cabaar buu jimicsaday oo iskala bixiyay oo iskala guray oo markaasuu baalciya subxaanaka yaa cadiim markaa isku shareerto markaasuu isagiina mar dambuu baxayoo dabeedna hashii weli biyihii waa ka socdaan wax weydiyada ma gaadhi weynosho may dhimani layne biyihii unbaa ka socdaa foosto malaha biyo foostaa biyaha unbuu ugu talagalay inuu ka cabo waa umaya hilib dooni maayo hadduu hilib dooni hasha waa arkaya inaanay wax la cunaba inaanay ahayn marka adigu mar saddexaadkiiba waxaan arkay muuq kale oo soo socda muuqa markaa soo socdaa maaha libaax oo dee waad arkaysa waa caddo bahal maaha waa wax sidaa u dhisan sidaa u taagan oo laba adin ku soconaya marka waxaan sidhi bahal berigii horena lagu cabsiin jiro caruurta habeenkii lagu suuxin jiray oo la odhan jiray madax kuti bahal dadqaadahoo madax kuti la odhan jiray markaasa waxaan sidhi wallaahi iyadu de waa iska dadoo ilaa kuwa hore urtii iyo qaabiliyaba kaaga filaatay kanisiduu waxaa siduu u soo socdo ayuu dee ku qaadanaya waayo waxaa loolan jiray madax kuti baa jirto habeenkii guriga duleedkiisay timaadaayo markaasay caruurta yaran magacyadooda dhegaysataayo marka la seexdo ayay muska isi soo taagtaayo markaasay odhanaysaa hebelow ama heblaayo markaasuu odhanaya hee markaasay odhanaysaa ho misigtan markaasuu odhanaya isiyo markuu gacanta soo fiiqo ayay la kuray markaasaa taasaan qaatay muuqii kadinkiibuu soo galay
waa arkaya inuu qof yahay laakiin cabsida ay haysaa ka xoog weyn qofka aan arkayo marka calaa kulli muuqi siduu soo socday ardayga isoo taagayo markuu ardayga isoo taagay ayuu xaggan eegay xaggana wuu eegay xaggana wuu eegay dabeetana markuu saddex hareerahoo dhan eegay ayaa qofkii hadlay wuxuu yidhi alla hoogi markaasaa gartay inay hooyaday inay hooyaday tahay oo waxaasoo libaaxa soo jiidhay oo markay raggii baa guriga sii maray oo hubiya wax ka guranayo markaasay ku ogaatay in halkii lagaga yimi halkii baa ka soo buuday dabeedna hooyaday anigoo hadii ka dhigo dee muskii hooyada halkii baan ka iga kaxaysay anigoo labadeedaa lugood dhexdooda ku jira taasoo dhacday ayaa habeenada ka mid ah koleyba waqtiga sheekadan baa ku gabagabaynayahay xamar muqdisho la foole meel la yidhahdaan waqtigaana joogay magaalada muqdishoan muraad u soo yeeshay magaaladii baan ka muraadsaday basas ka bixi jiray oo yaryar baan raacay meel kantaroolka oo afkooya looga baxo yuu istaagay wuu ka dhaqaaqay markii uu kantaroolkii u dambeeyey muqdisho ka dhaqaaqay ayaa waxaa kuraasida baabuurtu waxay ahayd baabuurkaas wuxuu lahaa 2 kursi oo dhaadheer saf halka ka soo jeeda iyo saf halka ka soo jeeda halkaa hortayda waxaa fadhida qof dumar ah kursiga igu beegan waxaa fadhida qof dumar ah waa qof da'yar ilmo yar bay lafta ku haysaa dinac bay sidataa iyo googarad iyo bahal ay huwanayd baskii markii yar socday ayaa ilmihii yaray lafta ku haysay oo hin bilaabay waa aamusi waayey wax walba way samaysay wuu aamusi waayey qayladiisii dadkii baabuurka ku jiray wuu dhibsaday mar keliya ayaa hooyadii intay sidaa halkaa gacanta gelisay ilmihii yaraa halkan jiifa ayay naaskii soo saarto afkaabay u gelisay shok baa markaa dhacay caado ma ahayn dee qof dumarahoo soomaaliya oo da'yari inay naaskeeda meel geeyaan fadhiyo rag fadhiyo inay naaska arrin adag bay ahayd inay naaska ku soo saarto laakiin maxaa dhacay waxaa dhacay duruuf xukumaysay inay soo saarto go-aankaa qaadato marka dhaliilima imane anigu saasaan uga horjeedayo waxaan gartay uun habeenkaasumaan si fiican u gartay waxa hooyanimadu tahay waxa hooyanimadu tahay yani maaha mid yani naaska ay halkaa horta naaska ay halkaa soo saartay nacasnimo kama aha qof qaade anshax darro kama aha laakiin waajib hooyanimo ayaa saarnaa ayay gudanaysa naaskii baa fogfaristo ilmihii naaskii wuu jaqayo markuu dee ka dharkay abaalgudkii lagu yaqiinay uu bixiyo dhabteedii uu saxaro iyo kaadi iyo banka buuxiyey meeshii iyadoo halkeedii fadhida subxaanaka yaa cadiim marka baraganimadeeda gabadhii dabadeetana diricii bay soo gurto horta saxaradii ee ku dabooshay iyadoo u jeeda dadka baabuurka ku jira dadka qaar miyaa dhibsada markaa waa la dhibsanaya oday horta waa la dhibsanaya qaar baabuur cimaamadihiisaa yidhi laakiin waa caynkaas waxay marka horta waxay isku dayday inay urtii xal u hesho diriceedii bay soo urwisay banta ma garanaysa saxaradii ayay ku duubto ku laabtay yaa soo haray ilmihii qoyan gogaradeedii bay soo gurtay oo ilmihii ayay ku qallajisay isagii oo dhan hooyadaa waajibka iyadoon dhul fadhiyin oo aqalkeedii fadhiyin oo meel dhula fadhiyin baabuur saaran ayay waxaas intaasoo waajiba ay gudatay ilmihii qallajisay ilmihii aamusiisay oo caana siisay dadkii urtii ilmaha ka dabooshay subxaan allah halkii baan horta markaasaan gartaan hooyadaas waxaa ka keenay xishood darro maaha waajib culus baa yidhi oo aanay ka adkaysan karayn oo ku noqon lahaa fadeexad iyo dhegxumo ilmaha yagii caawoo dhan ooyo dabadeetana dadku marka dambe iyada magan ilaahay dhulka kula gooye maxaad u aamusiin weyda haddii ilahay ka dhigo ilmaha yar intaasoo dhan iyadoo baabuur gudihii ku jirta ayay gudatay baabuurkii halkan ku socday wayla dhaafay habeenkii waa isiloodayba waan isilaawa habeenkii baan xusuustay iyo hooyada iyo libaaxii iyo labadii sheeko habeenkaasaan heesta markaan gurigaygii imi aqayili jiro qaad baan sitay ayaan haddii ilaahay ka dhigo haddii ilaahay ka dhigo gurigayga hooyay la-aanta habeenkaasay soo baxday
hooyada qura maahay hooyo dhan aad iyo aad ayaa sidaas ayaad ugu talagashay hadii goor xaqa waalidka lama gudo oo lama gartee bal hooyada caynkaas waxaad bal su'aal dadka weydiiyay bal hooyada caynkaas taas aan ka sheekaynayaa ama mar ibaaxa igu tibi ay halka istiri adiga ha ku cuno aad iyo aad saxan weydii intaas oo dunida waxa libaax ka ciyaaya soo jiiday halka igu tibi iyo tabaska gudihiisa ilmaha yar ay ku kaleftay inay qaawiso ilaa kubabkeeda waa ay akala ka dhigo ilmihii aamusi soo asturto aad iyo aad hooyadaasi markaa bal su'aal ba weydo waxaad leedahay hooyadaasi maxay xaq u leedahay bal ka warran